أصحابي ما أنتوا حنبوقنا يا شركة تايو إلكتريك oo leh boorkan aad arkaysaan waxaan gelayaa hadda shirkadda gudaheedii muraayado ayaan xafiis muraayada waa markii koowaad oo aan arko oo sidaan loo qalabeeyay xataa waa laga baxay mukayf baa la isticmaalayaa awal marawaxad yar baa la isticmaali jiray shirkadda tayo waxa kale ay astaamaheeda kamid ah xafiisyadeedu qaabkan bay u shaqeynayaan hadda waa kana xafiiskii oo qalabaysan shuruucda shirkadda u degan qof walba uu akhrisan karaa intuu boys yiraahdo halka waayo shirkadda tayo waa shirkad caalamiya waxyaalaha shirkadani ay magaalada isbedelka ay ku soo kordhisay xataa waxyaalaha nagu nadaafadiyo qanan gaar ay leeyihiin shirkadan habkan ay u diyaarsan tahay waxay shirkadani shirkadaha kale kaga casrisan tahay oo aad arkaysaan shuruucda qoran oo budgetka saa u qoran oo qof walba uu akhrisan karo magaaladu ma leh shirkadaha kale sidoo kale waxyaalaha ay shirkadani caanka ku tahay waxaa ka mid ah in ay shirkadani soo kordhinayso dadka alxanliyaasha ahaa oo motor soo gada la dhihi jiray laga xanibi jiray hadday barnaamijkooda qabsada damcaan dadka kambaniyada waaweyn oo motorro u baahan jiray hadda inaysan motorro u baahan doonin qiimaha ay noo sheegeen inay ka dhigi doonaan qiimo aad u raqiisa dadka ay ugu soo deyn doonaan dabka oo qof walba leefalka uu rabo la siin doono qiimo dhimis wanaagsan oo la bixin doono magaalada oo la casriyey oo lagu dhajiyey baalayaal casriya oo aad u waaweyn oo iyagana aan mar soo sawiri doono shirkaddan waxyaalaha ay ku casrisan tahay teeg waxaa ka mid ah shaqaalaha ay qaadato waa shaqaalo tayo leh naqshadahan hadda qaar ka mida waxaa soo xirxire ka shaqeeyay dad laga keenay wadano kale ajnabiga ee aad khibrad u leh waxay shaqaaleysiisay shirkaddan hadda ilaa intaan garanayo dad ka badan 40 qof bay shaqaaleysiisay shirkaddani waxay sheegtay inay dalka meel walba casriyeyn doonto magaaladana waxay sidoo kale kordhisay dabkeedu meelaha markuu marayo magaalada dhexdeeda dab ma ahan dadka dilaya waa dab lagu maamulayo hab casri ah oo qalab lagu maamulayo oo aan effectigiisu badnayn safety-giisuna aad u ballaaran yahay shirkaddan kolley anigu waan soo dhaweynaya anigoo ah Cabdullaahi Saciid Sheekh Xasan aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa waan ku qanacsanahay khibradaheedana adduunweynaha ayaa casriga ayaa laga keenay wax ka badanna way damacsan yihiin dadkan inay soo kordhiyaan aad u soo